marka Soomaalidu waxaan sameynaa marka London laga soo noqdo kadib waxaa la sameeyay assessment oo maamul goboleedyada la tagay gobolka Banaadir meel kasta ku sugan ciidamada militariga booliiska waxaa la soo sameeyay tirakoobkooda dhab ah مثلا سؤالها هذا سوقاته بوليسكا وهذا حدا أن حقيقي إن قفول بو بوليس إن فريه على قاضي مجلس دأديسة دمري رك وحيهين أدو غفق عيان هاي لما شاهد يجرتو حصلوا ريكورد جرسينهين إن قابتو وكسوجين سكرجة سؤال هليا مرك أنت الشركة لندن كده إنسى على فائدة أنت سو حدر وحنكلوك فائدني أنا حدا وكسونا بعهدا كجرتو إن بوليسكا مثلاً هذا نقول له إن بوليس ستيشن كوحو أجب يوحو بهاي هاي هذا نقول له عيدا كتوبرك وبهايهين سيدو كل وحن أكسونا هالدرجة الأولى هاي عسكري كستو أو كسوغان ودن كصوماليات أما كتر سن عيدا كبوليسكا. وهي مركا إن واحد جري اللي جهل سيدي أمريكا إذا ما دولة وريج لهاي مركا أمسهم ودن كبحان مركا qorshahaasi gaar ahaan hay'adaha amniga oo nabadgelyada booliiska oo iyagana muhiim u yihiin sidee wasaaradda ilaa hadda qorshahaasi sidee uga qayb qaadanaysaa intaas marayaan waa su'aal muhiim ah qorshahaasi xaqiiqda waa markii London lagu soo heshiiyay Amazon in wadanka si tartiib ugu baxaan ilaa 2020ka si tartiibna ugu baxaan wadanka marka sidaas darteeda waaba bilaawna already oo dhowr bil ka hor waxay ciidamada booliiska Soomaaliyeed la wareegeen jaamacadda ummadda ee ku taala magaalada Muqdisho ayay la wareegeen waxaana halkaas ku sugnaa ciidamada Burundi waxaa halkaas la wareegay ciidamo gaaraya 400 xooga oo booliis ah goobta la wareegay sidoo kale waxaa dhici karto sanadka 2018 oo maalmo ka dhiman marka la gaarayna tartiib ugu bixi doona inta markaas loo qorsheeyo ciidamo Soomaaliyeed hadda aan ogsoonahay tababarkii u baahan yihiin ama agab intuu u baahan yihiin la wareegi doono mustaqbalka Duulaahi Raad way marka waxa jirta dhaqaale inay u baahan yihiin in ciidankii la dhiso oo dhaqaale badan waxa ku baxa howlgalka Amazon marka beesha caalamka kala hadashan si dhaqaale badan si ciidanka tababaradooda iyo tayadooda looga fakaro sidii dhaqaale badan looga bixin lahaa dhismaha ciidanka qalabka sida gaar ahaan hay'adaha amniga ee booliiska iyo Soomaaliya waa maasita dhaqaalahaas waxa balan qaaday wadamo badan مثلا tusaalaha hadda aan soo qaato wadanka Jarmalka wuxuu balan qaaday inuu saaciidayo ciidamada booliiska Soomaaliyeed sidoo kale wadanka Ingiriiska ama UK wuxuu balan qaaday inay taageerayaan ciidamada NISA ugu dambeyn adigoo ka shidaal qaadanaya ama eegaya wixii ka soo baxay shirkii maanta furmay maxaad is leedahay mustaqbalka way ku suura gali kartaa in ciidamada amnigu ay wadanka loo wareegaan maxay tahay doorka shacabka ay ka qaadan karaan maadaama dawlad iyo ciidan aysan jiri karin haddana shacabka in waa mahadsantahay shirkan maanta wali uu socdaa bariisoo gabagabeeyo doonaa laakiin shirkan waxa ka soo baxay muhiimadiisa maanta laga shiray in baaritaanka iyo xogaha dhabta aan raadinay ee booliiska iyo militariga oo halka maanta lagu soo bayaaniyay ama lagu soo bandhigay marka arintaas international community waa la sheer gareena mar hore in ciidamada iyo qalabkay u baahan yihiin marka waxaan rajaynaynaa mustaqbalka dhow in ciidamada Soomaaliyeed marka loo dhameystiro agabka iyo tababarka waxay u baahan yihiin in hadduu Allaha wadali yiraahdo ay la wareegaan wadanka sidoo kale waxaana meesha laga maarmaan ah in shacabka Soomaaliyeed ay ciidankooda dhiirigeliyaan ay garab istaagaan ay howlaha adag ay ku jiraan ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan xaqiiqda markaad u fiirsato ciidamada amniga qaybahooda kala duwan waxay ku jiraan duruufo adag ku shaqeynayaan qoraxday taagan yihiin hadduu wedarka isbedelo roob hadduu yimaado way taagan yihiin mana gambadaan waxaa dhici karta in qoriga xabadda koowaad ama qarax koowaad isku dhigan iyagoo badbaadinaya mas'uuliyiin iyo shacabka Soomaaliyeed marka ciidamada aad ugu mahadcelinaa arintii ama wadanka waxay noo hayaan waan mahadsantiin